maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa dib u dhigtay dhageysiga dacwadda kiiska badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo qorshuhu ahaa in la dhageysto ama la qabto doodaasi 9 ilaa 13 bishan September. maxkamadda ayaa hadda kiiskaasi dib u dhigtay muddo 2 bilood ah waxaana dib u dhageysan doontaa bisha November ee sanadkan. sida uu sheegay Cali Fiqi oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub. maxkamadda oo qadarinaysa codsi uga yimid dowladda Kenya oo ahaa in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda ayaa soo saartay go'aankan. Kenya ayaa waxay codsatay in muddo 12 bilood ah dib loo dhigo dacwadaasi dhageysigeeda halka Soomaaliyana ay codsatay inaan haba yaraatee la kordhin waqtiga loogu talagalay in la dhageysto dacwadaasi oo aan dib loo dhigan. sida muuqatana maxkamaddu waxa ay qaadatay go'aan aan ahayn codsiga labada dhinac toona kaasoo ay 2 bilood oo qura ku dartay dib u dhigista waqtiga.